مدوغودي تاريخ دي دورا تي دورات محان دينو دبك الله شداي دلمي داعي دب إلا صحو daacadu ma kicin ma ku dayashiyo kasi daramba loo durbaantumay ilaah dambi dhaaf aan ka doone damamburkiyo damaqooniya iska dayo dadka la noqo dadka halgamaaga weyn cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya si weyn loogu soo dhaweeyay kadib markii uu muddo ku xidhnaa caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa cafis u fidiyay halgamaagaasi kadib markii si arxan darro ah looga qabtay magaalada Gaalkacyo kadibna lagu soo wareejiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi oo ay u safrisay dalka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa muddo dheer halkaasi ku haysatay halgamaagaasi kadib markii ay kula kaceen tacadiyad ka dhana xuquuqda aadanaha kadib markii ay cafis u fidisay dawladda Ethiopia halgamayaal fara badan oo kamid ah ururka ONLF isla markaana lafdhabar u ahaa halgankii muddada dheer soo socday ee ku jireen ururka ONLF soo dhaweynta cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa waxaa ka soo qayb galay hoow yaraan 1,500,000 oo qof waa sida lagu qiyaasay dadkaasi ayagoo hakis ay galeen duulimaadka hawada sare kadib markii ay dadku ka iimaanayeen dalka dibadiisa dawladda Kenya ayaa isla markaasi soo rogtay bandow iyo waliba jidgooyo ayagoo u baqay xaalad amni darro inay halkaasi ka dhalato kadib markii ay ku dhawaaqeen laamaha sirdoonka ee Kenya in amniga si weyn loo adkeeyo soo dhaweynta cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa waxay u muuqataa si mid weyn u gilgishay dunida caalamka kadib markii ay bulshadu baraha bulshada si weyn uga falceliyeen soo dhaweyntii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa khudbad uu ka jeediyay magaalada Nairobi ayaa waxa uu u mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu u dhaqmay ee isbedelka ee u soo daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Ethiopia intooda badanna xaq darro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaqa iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahayn halka inuu ka sii wado in kastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsanahay in ayadana xal laga gaari doono aad baan ugu mahadcelinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiinta kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii Soomaalida ahaa iyo ONLF u xidhnay habku ula dhaqmay iyo habku u sii daayay sidoo maamuusay aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan aniga qaabku ila tacaamulay iyo qaabku uu sii daayay isagoon cidina tala ka siinin isagoon cidina wax qorshe ka siinin cidda kaliya ee uu sheegay rag ayaga kamid ah maaha isaga uu sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyay wuxuu hal nin ya arintaada in badan nagu soo celceliyay marna si ka fool aan isaga aragnay wuxuu ahaa bay wiil Axmed Madoobe ma cadayn karo laakiin waa sidoo mahadcelin kadib dadweynaha ayaa waxay u muuqdeen kuwo dareen gaar ah ku muujinaya soo dhaweynta cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax kaasi oo muddo 10 bilood ku xidhnaa magaalada Addis Ababa waa caasimadda dalka Ethiopia waxaa sidoo kale muuqanayay dad Afrikaan oo kamid ah qoomiyadaha dega dalka Kenya kuwaasi oo ayaguna muujinaya soo dhaweynta cabdikariin sheekh muuse iyo qaabka ay u soo dhaweynayaan ayagoo ku hadlaya luqadooda u gaarka ah isla markaana muujinaya ciyaaraha u gaarka ah ee qoomiyadahaasi ciyaaraan taasi oo ka turjumaysa soo dhaweynta cabdikariin sheekh muuse ee qalbi dhagax bulshooyinta ayaa muddo dheer waxay ku taahayeen in cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax laga sii daayo xabsiga Ethiopia codsi kadib waxaa la soo daayay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax murugadii dheereed ayaa waxa ay bedeshay
farxad iyo reynreyn ah taasi oon loo kala hadhin soo dhoweynta iyo farxadda damaashaadka iyo qaababka loo soo dhoweeya cabdikariin sheekh muuse taasi oo ka turjumaysa haybadda iyo sumcaddii uu ku lahaa intii uu soo waday halganka dheer shacabweynaha Soomaaliyeed wixii dumay dumay wixii diday diday wixii degay degay waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone dabambolkiyo dabagooniya iska dayo dadka la noqo